madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka ayaa waxa uu dul istaagay xaaladda gobolka Sool kaas oo sheegay in qaran ahaan iyo xukuumaddiisba ay mudnaanta koowaad ay siin doonto sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xaaladda gobolka Sool isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri qodobka koowaad oo maanta mudnaanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah dadkooda waa inaynu xalilno dhibaatadaas caanood si nabad dawlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalkeena joojiye shuruud aan ciidamadana waxay xakameeyaan qarar ahaanna aynaan ku sii socon dagaal aynu nabad ka doono bilowgii ilaa halkii u dambeysay maanta waxay la tahay waxa joogana loo taliyo nabadana laga wada shaqeeyo waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhagan nuur yahay waxaan codsanayaa Soomaaliland dhameeyay nabadda ugu durto sideen u aragnaa dhibaatada maanta xalkeedu inuu yahay halkaan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda waxa weeye gobol Soomaaliland kamid ah oo dadkooda iyo muwaadiniinta Soomaaliland oo wax ka tirsanaya dawladda oo dawladda ka cabanaya oo ka gadooday waxay u baahan yihiin in loo fadhiisto la dhageysto dawlad ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qaldamay iska garaabo iyaguna waxay ka qaldameen ka garaabaan waana waxaan dhammaysan karno haddii Soomaaliland madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay cid kasta oo kala shaqeynaysa nabadda gobolka Sool waxaana uu ka digay gacmaha shisheeye ee faraha kula jira xaaladda gobolka Sool maanta waxaan leeyahay arrintaas waa arrin Soomaaliland dhexdeeda ciidan nagala shaqeynaysa nabad ee ama dawlad ah ma urura ee waraageena doonaysa ee daacadnimo u talinaysa nabadda waa la kaashanayna oo waa noo ogolahay inuu kolka hore laakiin laga bilaabo waa Soomaaliland oo dhexdeeda dhibaato jirta oo caawinayna waxaan ogolayn oo macquul ahayn in dadka qaarkii ama qayb kamid ah Soomaaliya oo Puntland gobolka ah inuu dagaalka iyo talada iyo faragelin qayr caadi ah la soo galo Sool isagoo raacaya hab qabaliya taasi sax maaha Afrikoodan ayaa xadadkii isticmaalku qaybsaday danna waxay mooday Afrika oo heshiis ku tahay in xadadkoodii ahaadaan haddii kale Afrika cid wax samayn karmayso xadka Soomaalilandna waa ka caalamiga ah marka cid ka bedeli karta de Afrika buu la xiriyaa Afrika tiraakii isticmaalka naga daayay mooyaane aynu dib u qaado mooyaane kaligeed Soomaaliland xadkeeda la oran maayo goonaha loo faquuqo sharciga Afrika ma ogola ka aqligu ma ogola Soomaaliya waa qaybsanta qaybiyo waxay la nooshahay Itoobiya oo wax la leedahay waa ogolahay xadkan dhowrena waa ka qayb waanu ku taariikhdeena iskaashi wanaagsan oo waanu ka doonaynaa wala yeelan qayb Kenya wax la leedahay waa ku ixtiraamayna mid waa Djibouti aan farba wadageeyay oo wax wada leeyahay oo dalay walaalnimo ku doonayo waa ku hambalyeena waa ku xaq dhowrayna maamulka Puntland iyo dawladda Puntland ka tirsan Soomaaliya ka tirsan iyo madaxda Soomaaliya waxa leeyahay war faragelinta ciidan leh ee kharash leh ee tala soo gurida leh حق معها كلامها ونبدأ ونبصر النوداي دولة إثيوبيا أو نجاح تطي أو تري هدي عند وطنتي ولا لين بارنهم مدينة قبلنا وحنا نبض عد لنا قصوا أقولها هذول لكن مركو هاره قاب كان نقول سين موضوع محي وأهل الصومال لا بحدثه madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay muhiim iyo lagama maarmaanba ay tahay inay dalka ka qabsoonto doorashooyinka kala duwan iyadoo dhibaatooyinka imika salaasacado taagayeen haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo cidii kala doorashada taagan tahayba dee socon maayo distoorkeena adhigaya in 5 sano mar cusboonaysiyo hadday dhibaato jirtana waa in muddo yar uu nagu daraayo aan loo dheerayn doorashooyinka waxay noogu xirsaaran guddida doorashooyinka qaranka waxay noo keenayaan iyaga uga fadhiyaan inoo keenaan wadadii doorashada si loo waqtiga qaban lahaa iyo muddadii wadada la marin lahaa midna iyadoo waa cadaan imika
waxaynu ku jirnaa qasab weeyaan doorasho galaa doorashooyin waxaynu ku jirnaa saddexdii xisbi qaran oo waqtigooda dhacay oo aan doorashada geli karin ilaa iyaga dib loo doorto waxaa halkan oo taagan 10 urur oo certificate loo siiyey inay u tartamaan inay xisbiga qaran noqdaan oo iyaguna dalka taagan oo la warday maxaa waqtigeena looga qaaday waxaan u baahanahay in isugu geyno inaynu degdeg guddiga doorashada uga codsano bal inaynu sameeyaan qorshe aynu waqtigeena ka bixi karayno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadii ma wahayno ama isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo saddex xisbi soo baxaan oo qaran axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.